aabihii Singapore kuan wuxuu ku dhashay Singapore September 16, 1923. kuan isagoo ka dhashay qoys Chinese ah oo ku noolaa Singapore tan iyo qarnigii 19aad. kadib dagaalkii labaad ee dunida wuxuu luqadii sharciga ka bartay dugsiga Fatiswaliim College. dhowr mar waxbarashada jaamacadda dib ayay kaga dhacday markii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. kadib wuxuu maadada dhaqaalaha u galay College London School of Economics. hore wuxuu soo dhigtay dhowr college oo wax ka soo bartay ilaa 1949. dhowr kooxood waxbarasho ayuuna cilmi ka soo qaatay. waqtiga Singapore waxay ahayd mid xaalad xun ku sugan oo dhibaatooyin isu biirsadeen. wadanka waxa xukumi jiray gudoomiye gudi sharci jadi inta badanna ka kooban ganacsato taajir ah oo reer Shiina ah oo loo magacaabay harkii loo dooran lahaa dalka. sanadkii 1950 Singapore waxay ku dhawaaqday dib u habeyn dimuqraadiyadeed iyo madax banaani. sidoo kale wuxuu isku xiray fikrado si uu uga hortago qaab dhismeedka maamulka ee dalka, inkastoo uu ka baxay kooxda isla markaana qaatay fikir kale. 1954 ayuu noqday xogayaha guud ee xisbiga oo ahaa xisbiga dadweynaha. 1955 dastuur cusub oo Singapore ayaa la soo saaray. waxaa kordhay tirada kuraasta la doortay ee golaha ilaa 25 ka mid ah 32, taas oo oggolaanaysa in 7 kursi oo kaliya ay buuxiyaan. doorashadii ka dambeysay, xisbiga shaqaalaha fudud ayaa ku guuleystay 13 xildhibaan, halka xisbiga uu ku guuleystay kaliya 3 xildhibaan. hase yeeshee xisbigiisa ayaa wakiil ka ahaa golaha 1956. waxa uu u baxay London isagoo qayb ka ahaa wafdiga raadinaya madax banaanida Singapore. kadib markii wadahadaladu fashilmeen, Singapore waxay ku sii jirtay xukunkii Ingiriiska oo ku lahaa markaas saldhigyadiisa ugu waaweyn bariga dhexe. laakiin 1957 ayaa mar kale ku soo laabtay London markii wadahadaladu dib loo bilaabay. markii ay madax banaanaatay Singapore, doorashooyin qadan ayaa la qabtay June 1959. wuxuu ku baaqay dib u habeyn bulsho iyo xiriir wadamada deriska ah. xisbiga wuxuu ku guuleystay guushii ugu weyneed isagoo ka qaaday 43 ka mid ah 51 kursi oo ka mid ah golaha. Singapore waxay heshay xorriyadii isxukunka marka laga reebo arrimaha difaaca iyo arrimaha dibadda. waxaa loo daariyay xilka ra'iisul wasaaraha 5 June 1959, wuxuuna noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Singapore. markii xafiiska uu fadhiistay kuan wuxuu soo bandhigay qorshe 5 sano ah oo ku baaqaya in dib loo cusboonaysiiyo magaalooyinka iyo dhisidda guryaha ee dadweynaha, xuquuqda haweenka, dib u habeynta waxbarashada iyo warshadeynta. qorshihiisa ayaa sidoo kale waxaa ku baaqayay in dib la isugu daro Singapore iyo Malaysia. kadib markii ra'iisul wasaaraha Malaysia Tunka Abdurrahman uu soo jeediyay in la dhiso federaal ay ka mid yihiin Malaysia, Singapore, Sabah iyo Sarawak. si loo muujiyo in dadka reer Singapore ay taageereen, waxa uu isticmaalay afti dadweyne September 1962, kaas oo 70% codka dadka dhiibtay u bateen midnimo. sida awgeed, sanadkii 1963 Singapore waxay ku biirtay Malaysia. isku dhicii Malaysia iyo Singapore. sanadkii 1964 Malaysia waxay u aragtay mid aan waxba ka soo kordhaynin federaalka iyo istiraatiijiyadda iyo wax soo saar toona aan lahayn. sidaa darteed ay tahay in ay federaalka iskaga baxdo maadaama ay tahay meel qashin qub ah oo aan waxba laga faa'iideynin. Singapore darar dowla oo Shiinaha ka horboodaya ayaa arrinkooda galay. muddo ayay jiitamaysay taa oo markii dambe isu rogtay kala go'ida midnimada. waxay ahayd mid aad u culus oo dhib badan. 7 Agoosto 1965 waxa uu ku dhawaaqay kala soocidda rasmiga ah iyo madax banaanida buuxda ee Singapore. kuan markii Singapore ka madax banaanaatay Malaysia, kuan waxa uu bareeyay waa cusub oo culays mawjadeed oo dhanka hogaaminta ah. waxa uu la hadlay dadkiisa isagoo u sheegay in loo istaago dalka oo la samata bixiyo. gudaha ayuu ku casuumay ganacsato ama maalgashiyaal shisheeye si uu indhaha caalamka u tuso dalkiisa. dowladdiisii uu hogaaminayay waxay xoogga saartay horumarinta dalka, iyagoo dadka ka jawaabaya hadalka hogaamiyahoodii kuna wajahan in dalku dhabac qaado si wadajir ahna loo wajaho xukuumadda iyo shacabkuna isu kaashadaan kana tago dunida saddexaad oo lagu tirinayo dalka. kuan wuxuu xoogga saaray koritaanka dhaqaalaha iyo taageeridda ganacsiga. horumarka dhaqaalaha ayaa sii socday ilaa 1980 iyadoo heerka shaqo la'aanta ay hoos u dhacday 3%. dhaqaaluhuna kordhay 8% ilaa 1999. intii lagu guda jiray 1980 Singapore waxay bilowday in ay kor u qaado warshadaha sare ee farsamada si ay ula tartamaan dariskooda iyo dunida kaleba. Singapore Airport ayaa la furay 1981 waxaana la aasaasay Singapore Airline.
waxaan la furay degada Singapore waxayna noqotay mid ka mid ah degadaha ugu mashquulka badan caalamka. dalxiiskuna wuxuu ahaa mid sare u kacay. maanta Singapore waa mid aad kaga muuqata caalamka dhaqaale iyo tiknoolajiyad ahaanba, halka markii hore ay ahayd mid saaxadda dunida ka qarsoon horumar ahaan, iyadoo maanta ka qurux badan kana dhaqaale badan dalal markii hore ka heer sareeyay, isla markaana ku liidayay in ay tahay meel aan xitaa la hawaysan karin ku noolaanshaheeda. maanta la joogana muwaadiniintooda waxa ay ka mid yihiin dhanka nolosha kuwa ugu sareeya. sanadkii 2017 kaalinta sagaalaad ayaa waxay ka soo galeen qiimeynta dhanka nolosha. kuan wuxuu ahaa nin dalkiisa ka dhigay mid ka mid ah dalalka dunida ugu dhaqaalaha badan dhanka tiknoolajiyadana heer sare ka gaaray.